qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ay ku nool magaalada Cape Town ee wadanka South Africa ayaa waxay hambalyo u direen maamulka iyo shaqaalaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed xilli uu maanta u dabaaldegayeen sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii dib loo howlgeliyay telefishinka qaranka Soomaaliya waxayna ku amaaneen howlaha bulshada Soomaaliyeed u hayo telefishinka qaranka Soomaaliya qaar ka mid ah dadka oo soo muuqday xarunta TV-ga qaranka Soomaaliya ku leeyahay magaalada Cape Town halka qaar kalena ay nasiib u heleen in kaamirada TV-ga ay ku booqato goobo kala duwan oo ay joogeen Somali National TV waxaan dhihi karaa waa midii ugu horeeyay muddo 22 sano Soomaaliya ee loo qaaday dhanka wanaaga waxaan ku faraxsanahay oo hamaleynayna sanad guulada TV-ga qaranka Soomaaliyeed TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxaan ugu hamaleynaynaa waxyaabo oo qabtay meel kasta oo ku sugan yahay waxay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo waxaan u hambaleynayaa TV-ga qaranka laba sano soo jiro iyo asagoo 9 sano jira inta waa hambalyeynaa sidoo kale waxaan jeclahay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ay wacyigelinayaan ay tusiyaan ay faahfaahinayaan qaranimada waxay tahay dawladnimada waxaan u hambaleynaynaa telefishinka qaranka Soomaaliya sanadkii isku dabaaldegaya annagana waa dabaaldegayna aad u hambaleynaynaa telefishinka qaranka Soomaaliya barnaamijyadiisa waxaan ku jeclahay sida xog waraysiga la socodka arrimaha Soomaaliya dib u habeynta dalka sida macnaha dhiirigelinta shacabka Soomaaliyeed ama soo jiidashada indhaha qofka Soomaaliga waxa hambaliyada labaad oo aad u mahadcelinaya TV-ga qaranka waa TV u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama magaalo ha ahaato ama caasimad ha noqoto ama tuulo ha noqoto aad bay ugu shaqeeyaan TV-ga qaranka ibn hadda bilaw Somali National TV anagoo hambalyeynayno sanad guurada koowaad waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay heleen TV u gudbiyo wax kasta oo idaacada ku saabsan kana mid ah jaaliyada Soomaalida soo arkay asaasa waxaan hambalyo u dirayaa TV-ga qaranka Soomaaliya oo 2 sano kadib markii dib loo howlgeliyay sanad guuradiisa labaad maanta ay tahay bismillahirrahmanirrahim aniga waa Umar Axmed Yusuf waxaan u hambalyeeyaa TV-ga qaranka sanad guuradiisa masha Allah aniga wax bime waxaan ku hadlayaa magaca gabdhaha Soomaaliyeed ee South Africa waxaan u hambalyeynaa TV-ga qaranka maanta maadaama ay tahay maalintii la aasaasay wiilasheena way ku mahadsan yihiin waxaan salaan diiran gaarsiinayaa Soomaalida meel kasta ay joogto codka qaranku waa caan waa cadceeb dhalaasho caadilkeenu soo dhigay arrigan ku noolnahay waa cudud wadaniyo ceeb laga ilaasho cisigii iyo sharaftii iyo cududii arrigeegon caankiyo kulaha cadgooniya calankii baluugee calankii baluugee cilmigii iyo codkii aan ku cirnay cudud badan halii caanahoo badan ciid ay u jiifteen ayuunba calaamada caadilow allahayow codka qaranka nooda waan ku caafimaadnay caadilow cirkaas mari cudurkan nadaashaday bulshada Soomaaliyeed ku nool wadanka South Africa ayaa si weyn u amaanay howlaha kala duwan ee telefishinka qaranka Soomaaliya uu qabto ayagoo si weyn u amaanay horumarada kala duwan ee gaarayo dalka oo ay ka qayb qaadanayo telefishinka qaranka Soomaaliya Abdullaahi Maxamuud Amiin Abdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town wadanka South Africa